قلبي من رشادي في سكون الليل أدعو في سجودي والدجى حولي سواد في سوادي يا رؤوفا يا رحيما يا حليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد ابن عبد الله صلوات الله وأزكى تسليماته عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين. ودرسيني طبعا إيوه تضباط ويان waxaan ku soo dhex jirnay qisadii ka hadlaysay iidaa'u quraysh lirrasuul sallallahu alayhi wa sallam. dibkay gaaladu nabi maxamed u geysteen maxaa kamid ah dhahanay guura geel dusha inay ka saareen. waxa kamid ah nabi maxamed inay ceejiyeen ba kamid ah ceego ay ku qabteen rasuulka alayhi salaatu wa salaam. ayagoo ceega ku haya ayuu sayid abubakar u yimid baa la yiri, markaasuu ka qabtay, markaasuu yiri ataqtuluuna rajulan an yaquula rabbi allah. wax kale kuma haysatiine ma waxaad oonu dilaydaan buu yiri ilaahay baa ii rabbiya miyaad ku haysatiin buu nabi maxamed alayhi salaatu wa salaam. ilaa wax kale lagu dagaalay ma jirin, waxaa lagu cadaaweystay ilaahay halla waxido baa nabiga lagu dagaalay alayhi salaatu wa salaam. qof walbo hadda maanta xaqa u istaaga oo xaqa ka run sheega cadow buu yeelanaya. laakiin qofkii yiraahda maslaxada dadka aan ilaaliyo, dadka aan macnaha qalbigooda dhowro, dadka aan raadi geliyo, ilaahay oo la raadi geliyo, waxay leedahay wax lagu liibaana baa laga helaa, waxay leedahay meel iyo wax lagu gaaro. laakiin ridaa'u naasi qaaya laa yatanaha baa la yiraahdaa, waa qaayo aan dhammaad lahayn. qofka isra bini aadam qanci weligii wuxuu ku jiraya bini aadam qanci oo ku jiraya. ilaahay baa la qanciyaa, bini aadam lama qanciyo. markaad ilaahay qancido qofka mu'minka xaqa qancinaya, runta qancinaysa, cadaaladda qancinaysa waa hadduu mu'min yahay. hadduusan mu'min ahayn ciqaabku doonanayo oon baa qanci doona baa la yiri. marka adigu bini aadamka ha isku mashquulin inaad ayaga oon ilaaliso ee ilaahay muxuu kaa rabaa ilaali, ilaahay muxuu raadi ka yahay ilaali, ilaahay maxaad ugu dhowaanaysaa ilaali. taasaa lagu liibaanaa. waana midda nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ummadda kusoo waxa weye kusoo tarbiyeeyey oo ummadda kusoo irshaadiyey. ilaahay buu uun ilaalinayay, ilaahay xaqa ayuu macna xaqiisa ayuu ummadda ugu yeerayay. hadduu gaalo iyo bini aadam qancinayo xaq ma ku soco lahay nabigeennu maba ku socdeen, hal maalin xaqa ma usan raacin weeyaan calayhi salaatu wasalaam. marka dhibaatooyinka nabiga loo geystay aad bay u badnaayeen. waxaa ka mid ah qashinkay soo qaadi jireen, waddada nabigu maraya la dhigi jiray calayhi salaatu wasalaam, si markuu waddada marayo qodaxdu ay u muddo oo dhaladu u muddo oo qofka mooska oo ula sidbado ee meesha ugu kufa nabigu sallallahu alayhi wasallam. waxaa ugu darnaa qoladii deriska la ahayd oo abulahab iyo gabadhii uu qabay ayaa ugu darnaa. qashin baa la soo tuurayaa, nabiga gurigiisa ku soo dhacaya calayhi salaatu wasalaam, si gurigiisa u wasaqoobo oo dherigiisa u wasaqoobo oo digsiga qashin ugu daato. markaasuu nabigu ku sabraya sallallahu alayhi wasallam. aad bay u badan yihiin. kitaabku intuu noo sheegaan bal aan aragno. akhadad quraysh waxay guda gashay, waxay qabatay isku oran ficlu shuruuca marka laga hadlayo xagga naxwada looga soo qaata. akhada guda gelid weeyaan. akhadad quraysh waxay guda gashay tu'di rasuula nabi maxamed inay dhibaato u geysanayso oo watastahzi'u ay kulli kaacoonayso oo ay ku jeesjeesayso bihi nabigay guda galeen. nabi maxamed bay ku jeesjeesayaan, khusuusan gaar ahaan idaa dahaba ila salaati. nabigu markuu salaada aado oo sujuudda la dhaco qosol bay bilaabayaan. bal sidoo korkiisa jirkiisa u kala fooranayo feeray ninkaasoo iskugu dheelayo, madaxiibuu hoos marinaya, dhabarkiibuu kor marinaya. maantoo dhan dacaayad bay ku jiraan. markuu salaada galo bay caynayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam. ara'ayta alladii yanhaa cabdan idaa sallaa, ninkay ku soo degootay waa abujahal weeyaan. abujahal bay ku soo degootay. abujahalna waxaa la yidhaahdaa fircawnu haadihi lumma la yidhahdaa. ummadda nabi maxamed fircoonkeediyaa la yidhahdaa, waa fircoonkii ummaddan weeyaan. markaasuu nabiga u diiday calayhi salaatu wasalaam. toggaan buu yidhi mako aniga ka taliya buu yidhi, ma la ogola in lagu sujuudo, sujuudba looma ogola buu yidhi. sujuud wax la yiraahdaba maba loo ogola buu meesha anaa madax ka abu yiri bal kibirka fiiri kibirka nooca lag ninka gaaray weey ee nabiga u dhaarto yiri
haddaan ku arko adigoo sujuudaya intaasoo dhib aan kuu geysanaa buu yidhi intaasoo dhib aan kuu geysanaya aan ka soconno qisooyinka aad bay u badan yihin nabigu markuu salaada aaday aad ugu jeesjeesi jireen goormay arrintan bilaabeen bacda an ra'at qurayshtu markay aragtay ka bacdi istimraarahu nabiga calayhi salaatu wasalaam daa'imidiisa nabiga daa'imidiisa fi dacwati ou daa'imay iyo wa difaaci cammihi adeerkiis difaaciddiisa oo canhu nabiga difaacayo arrintaa markay arkeen baa la yidhi oo qurayshtu arrintaa aragtay bay sidaa macnaha bilaabeen weeyaan arrintaa markay arkeen ay macnaha arrintaa bilaabeen iyo jeesjeeska iyo sidaa ay bilaabeen weeye inta maray qurayshta u imaanayin abu daalib saddexu ka soo dhigay soo maaha saddexdaas mid kale in arki jiran aan rajaynaya insha allah kolley saddexa kitaabka hadda ku qoranba saddexaan aragna saddex maray qurayshtu waxay u yimideen abu daalib arbaca maraadaan dhahna laakiin waa saddex mara kitaab ku qoran saddex mar wa kaana nabigu wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam yuqaabiluhum ayaga mid qaabila qurayshta bilxilmi dulqaad ayuu ku qaabili jiray markii xumaan lagu sameeyo waa u dulqaadanaya wasabri sabaruu ku qaabili jiray wallutfi turid iyo dhimrin buu ku qaabili jiray waalcafwi iska cafin buu ku qaabili jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam wa kaana wuxuu ahay ashaddahum qurayshta midka ugu daran iidaa'an dhibitaan lirasuuli la dhibaateeyo abujahlin gaalka la yidhaah buu ahaa jahliga aabbihii baa layidhi jahliga aabbihii ninkaasa ugu dhib badnaa oo ugu darnaa dadka nabiga dhiba waa ninka yidhi nabigu aad ugu dhaartay baa la yidhi nabigu u goodiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigu u arkay baa layidhi isagoo tukanaya salaaddii u diid maagay sidii haddaba aan ka hadlaynay markaa u diid maagay oo nabigu u dhaartaa la yidhi oo yidhi salaad miyaad ii diidi kartaa buu yidhi markaasuu abujahal wuxuu yidhi atuhadidunii waana agharulwaadii buu yidhi naadiyan togaan mako inta degan anaa u taageero badan buu yidhi qof taageero haysta anaa ugu badiya buu yidhi maanaad ii dhaaranaya buu yidhi maxamedow waxaad taageero haysta soo ma adogid markaasaa waxaa soo degootay kallaa lain lam yantahi kallaa joogsee lain lam yantahi hadduusan gaalkaasi reebtoomin la nasfacan jiidnee binnaasiyati foodda ayaan jiidaynaa buu ilaahay leeyahy ama qabannee weeyaan naasiyatin food naasiyadaasoo kaadibatin beenley ah khaadi'atin gefley ah falyadcuu ha u yeerta buu ilaahay yidhi naadiyahu taageeradiisa dadka ah oo waadiga ay khamrada ku wada cabbaanu sheegayo bal ha wacdo sanadcu zabaaniyata malaa'igta zabaaniyada la yidhaahdo oo qofka la cadaabayo naarta ku tuura baan u yeeranaynaa buu ilaahay leeyahy kalla arrintaa ka joogsee laa tudichu nabi muxamedow ha adeecin sala allahu calayhi wasalam wasjud tuko oo iska sujuud baa la yidhi waqtarib ilaahayna u dhowaaw warkiisana waxbaha ku falin saasaa nabiga lagu yidhi sala allahu calayhi wasalam marka gaalkaasa ugu darnaa dadka nabiga ka soo horjeeda waxaa kaloo ugu darnaa waa abulahabin gaalka abulahab la yidhaahdo baasna aad u dhibi jiray iyo wa cuqbatu ibnu abu mucaydin waa gaalkii mandheerta saaray cuqbaa la yidhaahdaa mandheerta nabiga dusha ka saaray calayhi salaatu wasalaam mandheerta geela iyo walwaliid bin muqiira gaalka waliid bin muqiira la yidhaahdo waqad intaqama allaahu ilaahay baa ka aargutay intaqama aargudasho weeyaan min jamiici almustahzi'iina kuwii nabiga ku jeejeesay kulligood ilaahay baa ka aargutay bacda alhijrati hijrada bacdigeed buu ilaahay ka aargutay kulligood waa la baabiyo weeyaan fa minhum waxaa ka mid a man qutila duul la dilay oo dagaalkii beder lagu dilay sida abujahal iyo wa minhum waxaa ka mid a man duul ahlakathu lamraadu jirooyin ay halaageen abulahabaa ka mid a abulahab dagaalkii beder ka bacdii u dhintay asaga lama dilin laakiin cudur baa ku dhacay baa la yidhi cudurkii uu la dibiray caloosha dhan baa iska dibirtay waa ku fiicnaa inuu dibire ah waa iska dibiray cudur baa ku dhacay cudurkiibuu u dhintay waa la duugay dhulkiibaa soo tufay ilaa wax baasoo balaayo qabe ah haddana waa la duugay dhulkiibaa soo tufay meeshii lagu duugaba bannaankii ciidda u soo tuurtaa lianna qof nabiga saa u cadaaweystay aakhiriya adduunba khayr male kaas haadihi as'ila maadaa camilat qurayshun
quraysh maxay sameeyeen camal falkan waa waxa la sameeyo weeyaan bacda an ra'ad markay aragtay ka bacdi istimra'ati waxa loo hoos dhigaa waa at-takhallus min iltiqaa'i saakinayn weeyaan ayaa loo kasriyey ee ra'at way reebantahay waa ficil maadi taada la socota waa taa'u ta'niif as-saakina ayaa la yidhaahdaa qurayshtii maxay sameeyeen bacda an ra'ad markay aragtay ka bacdi istimraara annabiy nabiga daa'imidiisa sala allahu calayhi wasalama fii nashri dacwati dacwada faafinteeda nabigu inuu iska daa'imayo oo khayrka hawshiisa u socoto markay qurayshu aragtay ka bacdi maxay sameeyeen waa su-aal la isweydiinayo wa difaaci cammihi nabi maxamed adeerkiis difaaciddiisa markay arkeen canhu nabiga uu difaacayo maxay qurayshi sameeyeen bimaadaa maxaybuu kaana ahaa nabi maxamed yuqaabiluhum ayaga muxuu ku qaabili jiray bilxilmi wasabri soo ma ahayn iyo cafi bimaadaa maxaybuu yuqaabiluhum ku qaabilayay alrasuulu sala allahu calayhi wasalam waa ka faacilki man ruuxeebaa kaana ahaa ashadda mid daran iidaa'an xagga dhibitaanka lirasuuli la dhibaateeyo gaalada yaa ugu darnaa yaa ugu dhib badnaa inta nabiga dhibta calayhi salaatu wasalaam abujahal abulahab waa nagii soo mar hal intaqama allaahu ilaahay ma ka aargutay min almustahzi'iina kuwii nabiga ku jeesjeesi jiray ilaahay ma ka aargutay jawaabtu waa nacam weeyaan fa minhum man ahlaka allaahu wa minhum man ahlakatu lamraadu soo sama aanan marin qaarna cudur bay u dhinteen qaarna dagaalkii beder ayaa lagu dhammeeyey dadkii lagu laayay dagaalkii beder 70 bay gaarayeen 70 gaal abulahabka naftiisa ka mid ah abulahabka ka mid ah as'ila alkhulaasa dhe akhadad qurayshun waxay guda gashay fii iidaa'i rasuuli nabiga dhibka ay dhibayaan bay guda galeen wa kaana nabiguna wuxuu ahaa yuqaabiluhu mid la ku qaabila bilxilmi dulqaad iyo wasabri wa ashaddu acdaa'ihi nabiga acdaadiisa midka ugu daran abujahlin iyo wa abulahab buu ahaa iyo wa cuqbata ibnu abi mucayd ninkii maneerta nabiga dul saaray weye calayhi salaatu wasalaam iidaa'u qurayshin lisaxaaban gelaynaa waa qaybaha uu ka dhiga kitaabku qaybtii dersigii 22 uu ka dhigaa iidaa'u qurayshin lisaxaaba saxaabada nabiga say u dhibaatay jireen saxaabta rasuulka waa noo sheegi doonaa kitaabku lamaa ra'ad markay aragtay qurayshun quraysh anna rasuula sala allahu calayhi wasalama nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam asbaxa nabigu inuu ahaaday casiizan mid la sharfay oo casiis ah casiizan mid macnaha sharaf leh muxtaraman la ixtiraamay nabi maxamed inuu ahaaday qurayshtu markay arkeen imtanacuu waxay ka reebtoomeen can adaahu qofka marka lagu daaro waa la iska daayaa moogti qofka sida loo dhibayo annagaa safarka nuxuya maane haddii adiga lagu kari waayo meel kale la biirina haddana bini aadamka wax baasoo dhib badan laakiin haddii lagu guulaysto tijaabada koobaad iyo labaad waa laga guulaystay marka sabarku wax sahlan ma ahan sabarku sideedaba qofka waxaa la rabaa wax walba oo wanaaga oo ku jira inuu ku sabro hadduusan ku sabrin qasab waa laga tuurayaa meesha maalin laga tuuraba wax uu doona ha noqdo qof oon baa ku fidnaynaya ilaahay naga badbaadshe bini aadamkuna saasay u samaysan yihiinba wax walba ood samaynayso in lagaa luqdaafeeyo waa u samaysan yihiin nabiga dhib walbo loo geystay waa la kari waayey soo ma ah markii lagu guulaysan waayey oo weliba la arkay inuu wanaag ka sii qaadayo wa idaa araada allaahu nashra fadiilatin ataaxa lahaa lisaana xasuudin baa la yidhi ilaahay markuu doono wanaagga asagu inuu faafiyo dadka acdaadaabaa xataa iyagaa faafiya baa la yidhi waxay culummadu dhahaan alxaqu bimaa shahidat bihi alacdaa'u xaq waxaa la yidhaah acdaadu waxay ka mara kacaan cadowga xataa waa ka mara kacayaan rasuulkay inkirayeen ayagiibaa xataa meel walba geynaya oo ka sheegaya wanaaggiisa ma inkiri karaan markay ogaadeen oy arkeen nabi maxamed inuu yahay casiizan muxtaraman ay imtanacuu can adaahu dhibkiisii o dhan iska dhaafeen marka waa joojiyeen waa yareeyeen weeye wa aqbaluu calaa asxaabihi nabiga asxaabtiisii bay qaabileen biliidaa'i dhibkii bay la qaabileen walaa siyamaa mathal ma leh saasa lagu macneeya walaa siyamaa mathal ma leh almustadcafiina kuwa la taag daraystay kuwaasu xisaabta kuma jiraan
mustadcafiin waa maxay waa qaybo muslimay oo weli la gumaysanayo sida bilaal oo kale umaya binu khalaf aljumaxi baa gumaysanayay sida camaar binu yaas ee ninka la yidhaha camaar oo kale qaybaha noocaasoo weli la gumaysanayo masal male iyagu aad baa loo dhibay wey kuwaas si gooniya loo dhibay aladiina mustadcafiintaasoo laa naasira lahum qof u hiliyaba aan lahayn ilaa ilaah maahane subxaana wa tacaala wax u hiliya aan lahayn fa akhadat kullu qabiilatin qabiilo walbaahi waxay gudagashay tucadibu inay cadaabayso man ruuxi aslama islaama oo minhaa qabiiladaa ka mida bay ku bilaabeen inay cadaabaan marka bilxabsi bay ku cadaabayaan qofka xabsi bay ku tuurayaan wadarbi garaacid bay ku cadaabayaan waljuuci baahi bay ku cadaabayaan walcadshi oon bay ku cadaabayaan asxaabtii saas loo dhibaataynaya xataa saara alwaaxidu ilaa mid ou ka ahaado oo minhum asxaabta ka mida laa yastadiicu aljuluusa fadhiba inuusan awoodin xanuunkii inta ka bato oo dhaawacu ka bato sida loo dilayo dhulka hadduu fadhiisan maago ma fadhiisan kara weeyaan sida khabaab binu arabti oo kale walaa yadrii ousanna ogayn maadaa yaquulu waxa uu ku qowlayo xitaa ma oga weeyaan mid ka mida sida loo dhibaataynayo xataa wuxuu ku qowlayo ma ogaan karo yacni dhibkaa ka batay weeye maadaa yaquulu wuxuu ku qowlayo uusan ogeyn muxuu la ogaan waayey min shiddati alcadaabi cadaabta lagu hayo iyo dhibka lagu hayo darnaantiisa weeyaan wa miman duul waxaa ka mida cudibuu la cadaabay bilaalun baa ka mida bilaal binu rabaax ayaa ka mida weeyaan xataa saara alwaaxidu ilaa uu ka ahaado oo minhum ayaga ka mida laa yastadiicu aljuluusa fadhi midaan awoodin walaa yadrii aan ogayn weeye maa yaquulu waxa uu ku qowlayo min shiddati alcadaabi cadaabta lagu hayo darnaanteeda darteed buusan la ogeyn wax kale muu idin qorayaa laa yastadiicu ljuuca muu leeyahy laa yastadiicu ljuluusa weeyaan saxdaade xataa saara alwaaxidu minhum laa yastadiicu aljuluusa fadhi ilaa uusan ka awoodin walaa yadrii ousanna ogeyn maadaa yaquulu maa yaquulu wuxuu ku qowlayo dheh min shiddati alcadaabi wa miman waxaa ka mida cudibuu la cadaabay asxaabta la cadaabi jiray waxaa ka mida bilaalu wa camaar ibnu yaasir baa ka mida wa akhuuhu walaalkii camaar walaalkiis baa ka mida wa abuuhu camaar aabbihii baa ka mida wa ummuhu camaar hooyadii magaceeda maxaa la yidhaah sumaya ayaa ka mida wa khabaab ibnu arati baa ka mida khabaab binu arati sida loo cadaabayo oo loo gubayo jirkiisa dhan baa shiilmi jiray dabka lagu cadaabayaa dama marka dabkaa iska damaya marka dambe birta lagu gubayo oo kulul ayadaa damaysa dhiiggiisa dami jiray baa la yidhi waqtigii sayidana cumar buu weydiiyey khabaaba weydiiyey sayid cumar dhibka loo geystay markaasuu shaarka iska bixiya baa la yidhi sayidana cumar waa fiiri waaye waa iska ooyi lianna lafo iyo seeda maahane hilib ma baa lahaa jirin khabaab ibnu arati saxaabiga la yidhaahdo bilaal saxaabiga la yidhaahdo umaya ibnu khalafa cadaabi jiray meel qoraxa buu dhigaa dhagax weyn baa dusha laga saaraa kulayl markay noqoto ousan iska qaadi karin markaasaa waxaa loo yidhaah laa tasaalu haakada xataa takfura bimuxammadin wa tacbud allaata waalcuza dhibkaan lagaa dayn maayo ilaa nabi muxamed aad beenido ilaahayna aad beenido sanamkan allaat waalcuzana aad caabudo asaguna muxuu dhihi jiray axadun ilaah baa kale ah anigu marna layga fujin maayo saxaabiga la yidhaha camaar ibnu yaasir sidoo kale loo dhibaatay jiray camaar hooyadii sumaya la yidhaahdaa waa gabadhii ugu horrayday oo ilaahay daraaddii loo dilo awalu imra'atin shahidat fi lislaam baa la yidhahdaa gabadhan sumaya ayaa la yidhaha waa camaar hooyadii saxaabiga haddaan marayno markay xaqii marnaba ka laaban weyday ayuu abulahab inta bir soo qaaday oo ka geliyey xubunka taranka markaasuu nafta uga qaaday baa la yidhi reer iyo aalu yaasir ayadoo la cadaabaya nabiga maalin soo maray kulli waa qoys la dhibaataynaya moogtahay aabbihii hooyadii wiilkii markaasuu yidhi sabran yaa aala yaasir fa ina mawcidakum aljanna su-aalaha ayaa inta ka bilaaban doona dersiga aan soo qaadana la xiriira halkaa waxaa noogu dhammaaday casharkeennii 17 ayaa halkaa noogu dhammaaday allaha nagu anfaco hada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu